السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ميل walba joogtaan ku soo dhawaada warka TV-ga Somali Channel wararka daawan doontaana waxa ka mid noqon doona wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Xasan Suleymaan ayaa dib ugu laabtay magaalada Muqdisho kadib safarro uu dalka dibadiisa ku aaday waxaana markii uu Muqdisho tagay uu ka warbixiyay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya shirarkii uu kaga qayb galay qaar ka mid ah wadamada caalamka. macallimiin ka socota jaamacadda Jomo Kenyatta ayaa casharo ku saabsan post graduate ka bilaabay jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. waxgarad iyo odayaal dhaqameed ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa baaq nabadeed u diray beelo wadadega oo ku diriray qaybo ka tirsan gobolkaasi Hiiraan. kulan looga hadlayay adkeynta amniga iyo iskaashiga bulshada oo uu soo qabanqaabiyay maamulka degmada Doolow ayaa lagu qabtay xarunta maamulkaasi ee degmada Doolow. dadweynaha reer Puntland ayaa aragtiyadooda ka dhiibtay sida loo baahan yahay inay u dhaqmaan murashaxiinta u tartamaysa madaxtinimada Puntland marka la guda galo xilliga doorashada ee Puntland. waxaana shacabweynaha gobolada Puntland ay ku baaqeen in dawladda iyo murashaxiintuba ay ka wada shaqeeyaan adkeynta ammaanka. daawadayaal intaasi warka madaxdiisii waxay nagu soo socda warka oo faahfaahsan hase ahaatee ku soo dhawaada qadar iyo raxaysiina. wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Xasan Suleymaan ayaa dib ugu laabtay magaalada Muqdisho waxaana uu ka warbixiyay safarro uu ku tagay wadamo ka tirsan caalamka iyo shirar uu ka qayb galay. warbixinta waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyahayaga Nimco Maxamed Bashiir. wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Xasan Suleymaan oo dib ugu soo laabtay dalka kadib safarro shaqo oo uu ku soo kala bixiyay qaar ka mid ah wadamada caalamka ayaa faahfaahin ka bixiyay shirar kala duwan oo isaga iyo gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya ay uga qayb galeen wadamadii ay safarka ku tageen kuwaas oo sida uu wasiirku sheegay looga hadlay sidii loo dhisi lahaa dhaqaalaha dalka iyo kuwa lacag loogu ururinayay Soomaaliya. waxaa noogu xigay shirar aan ku lahayn wadanka Mareykanka oo wuxuu ahaa shir sanadeedkii World Bank iyo IMF. halkaas waxaan ku galnay shirar wadaag ah oo aanu la wadaagnay wadamada Afrika iyo kuwa Middle East iyo wadamada loo yaqaano G7+ oo ah urur ay isku bahaysteen wadamo 18 oo inagu aynu ka mid nahay oo ah wadamada ka soo kabanaya burburka inagu aynu ka soo kabanayno kale. annagoo groups-kaas baanu shirar la galnay World Bank iyo IMF kuwa annaga noo gaar ah baa jiray oo World Bank aanu la galnay oo IMF aanu la galnay oo aan la galnay Japan, Norway, Sweden kulligoodna waxaanu uga mahadcelinaynay caawimaada ay dalka iyo kaalmada ay u geystaan waxaanu ku boorinaynay inay dardargeliyaan oo kordhiyaan. waxaa raacay intaas agreements aanu muddadaas ay noo suurtooday inaanu dhammaystirno. waxaa ugu horeeyay magaalada Rome 9kii bishii September waxaan shirku agreement kula saxiixanay Norway 30 milyan oo barnaamijka loo yaqaano Special Financial Facility ku aadan. barnaamijkaas muddo laga soo shaqeynayay goal bay ahayd in agreementkiisii labada dawladood dhammaystiraan oo qalinka ku duugaan. waxaa ku xigay mid dawladda Mareykanka la galay oo 8 milyan iyo 300 kun oo kaalmo ah dalka Soomaaliya u fadinayso oo bisha 19keedii aan ku galay Washington. waxaa kale oo ku xigay bisha 22keedii 3 milyan iyo bar deeq ah oo ay bixisay Denmark oo iyadana aanu ku galay meesha la yiraahdo Washington New York. Maxamed Bashiir, Somali Channel, magaalada Muqdisho. magaalada Muqdisho macallimiin ka socota jaamacadda Jomo Kenyatta ayaa casharo ku saabsan post graduate ka bilaabay jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. warbixinta waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Cali Xuseen Koronto. xilli dhawaan jaamacadaha Jomo Kenyatta iyo jaamacadda Soomaaliya ay wada gaareen heshiis iskaashi dhanka waxbarashada heerka sare ee post graduate ayaa macallimiin ka socotay jaamacadda Jomo Kenyatta waxa ay ka bilaabeen jaamacadda Soomaaliya casharo ku saabsan heerka sare ee masterka.
casharada ay jaamacadda Soomaaliya ka bilaabeen macallimiinta ka socota jaamacadda Jomo Kenyatta oo qayb ka ah heshiiska labada jaamacadood ayaa ardayda diyaarinaysa postgraduate waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen in gudaha dalka ay ku qaataan waxbarashadii ay u aadi lahaayeen wadanka dibadiisa. magacayga waxaa la yiraahdaa Sheekh Doon Salaad Cilmi waxaan ahay dhakhtar Soomaaliyeed oo ka shaqeeya magaalada Muqdisho. waxaan sharaf weyn ah inaan ka mid noqdo ardayda baranaysa Masters in Public Health caafimaadka guud caafimaadka bulshada ka baranaysa jaamacadda Jomo Kenyatta University iyo jaamacadda Soomaaliya. barnaamijkan ay diyaariyeen ku saabsan shahaadada masterka Public Health. waxaan ka mid ahay 25 dhakhtar iyo kalkaaliye oo baranaysa maadadaas oo hadda ay uga bilaabatay jaamacadda xarunta jaamacadda Soomaaliya. kana tirsan ardayda masterka ee Jomo Kenyatta ee hadda ay ka bixiso jaamacadda Soomaaliya. Jomo Kenyatta aad bay u mahadsan yihiin wadankeena inuu keeneen waxaana qabanqaabinayaa jaamacadda Soomaaliya oo aad u fududeysay meeshii aan ka aadi lahayn dibadda. maanta waxaan ku faraxsanahay in dalkii aan wax ku baranayno in aan shaqaysanayno reeraheena iyo caruurteena la joogna in maanta aan wax dhiganayno waxbarashada halkan ay noogu taalo maadaama dibadda aadin waxa laga yaabaa ragga inta badan shaqeeya ee hadda masterka diyaariya wadankii ka shaqeeyaan haday baxaan in helina laga yaabaa waa ilaan meesha wax ku soo saaranayeen wadanka waay. macallimiinta ka socotay jaamacadda Jomo Kenyatta ayaa waxa ay sheegeen inay si aad ugu faraxsan yihiin inay postgraduate ay ka bixiyaan gudaha dalka Soomaaliya. I'm the head of Business Studies Department. I'm here in the capacity of a visiting lecturer, of course, for the Jomo Kenyatta, we call it JKUAT UNISO MBA program, and I'm very happy to be here. I've been here for the last 1 week, and we'll be having continuous programs where a lecturer comes, works for some time, and then goes back. The students have been very welcoming. We had very good reception from the UNISO group. I'm very happy to be in Somalia. Here I've been facilitating the Masters in Public Health program. So far the response has been very good. There's a lot of tasks to learn and a lot of learning that is ongoing here on campus. So we are very happy for this cooperation between JKUAT and UNISO. gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Macalin Ablaal oo isna saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay waxbarashada postgraduate ee iska kaashanayaan labada jaamacadood isagoona tilmaamay in ardayda Soomaaliyeed ay si weyn uga faa'iideysan doonaan oo ay postgraduate ku diyaarin doonaan gudaha dalka. oo fulinay barnaamijka postgraduate programka kaas oo ay ku baxayaan laba degree program and Master of Business Administration and Master of Public Health. barnaamijkaas aad soo aragteen waxaa iska kaashanaya jaamacadda Soomaaliya iyo jaamacadda Jomo Kenyatta University. waa barnaamij master ah oo loo jaamacadood ay ku wada fulinayaan jaamacadda Soomaaliya lagu fulinayo. waa barnaamij inta laga soo shaqeeyay waxayna ka qayb galayaan hadda arday gaaraysa ilaa 50 arday dafcadiisa koowaad. dafcada labaadna insha Allah ay bilaaban doonto dhawaan oo intake labaad admissionkoodii hadda uu socdo. barnaamijkan postgraduate programka ee aan la kaashanayno ka wada shaqeynayno aan iraado jaamacadda Jomo Kenyatta wama aan talagelin kaliya ardayda ka baxda jaamacadda Soomaaliya oo degree kood ka qaata laakiin waxaan ugu talagalay arday kasta oo Soomaaliyeed not only inuu xamar joogo not only inuu Hargeysa joogo meesha waa joogo boosaaso joogo arday kasta oo Soomaaliyeed oo danaynaya inuu waxbarashadiisa kor sii qaado uu shahaado kale helayaan uu talagalay waan lagu soo dhaweynayaa biidnillaah kariim. Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto, Somali Channel, magaalada Muqdisho. kulan looga hadlayay adkeynta amniga iyo iskaashiga bulshada oo uu soo qabanqaabiyay maamulka degmada Doolow ayaa lagu qabtay xarunta maamulkaasi ee degmada Doolow. kulankan oo looga hadlayay amniga iyo iskaashiga bulshada ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee degmada Doolow Soomaaliya
kaas oo ay kasoo qayb galeen odayaasha dhaqanka, culimo diinka, saraakiisha ciidamada, ururada hooyooyinka iyo dhalinyarada. waxaana shirkan soo qaban qaabiyay gudoomiyaha degmada Doolo Soomaaliya Cabdirashiid Xasan Cabdinuur, waxaana uu bulshada kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan amniga degmada, taasoo uu sheegay in looga baahan yahay in qof walba uu mas'uuliyad iska saaro. qof kastoo annaka naga mid ah inta aqoontiisa iyo aragtidiisa iyo kartidiisa ay tahay oo baaritaanka geysto. hadday tahay gabdhaha maqaayadaha leh, hadday tahay gabdhaha dukaamada leh, hadday tahay odayaasha, hadday tahay dhalinyarada, qof kastoo annaka naga mid ah qofku yaqaano inuu dib u sii raadiyo u sii eego. qof muslim ah oo aan dhibaato wadin oo xumaan aan ku jirin inaan ku xadgudubnana waa shay naga xaaraan ah oo ma rabo. qof shar noo wado in aan qarsannana ma rabo. arrintaas marka waxay u baahan tahay maskax fara badan iyo fikir fara badan iyo ilaalin fara badan. arrinta waqti ugu muhiimsan oo saarka shirkanagan degdega ah aan iskugu yeeranay waa arrintaas. qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa ku raacay gudoomiyaha inay muhiimad gaar ah leedahay in xilligan laga wada shaqeeyo amniga, iyagoona ugu baaqay dhalinyarada, hooyooyinka iyo qaybaha bulshadaba in ay sameeyaan dadaal dheeraad ah oo looga hortagayo wax walba oo bulshada ku soo fool leh. reer Doolo wadaan nahay anagu dad aan la aqoonin baa meeshaan iyo noo joogo. waxa waay dad ilaahay umadiisa dhan imaaday oo la ka saar ma jiro. maxaa loo baahan yahay foojignaan iyo fiiri iyo ogaal iswarsisho way soo galaan. maxaa soo galay magaalada magaalo sidaan oo kale afarta hareeraha lagu degin yahay way soo galaan lama kasi karo. ilaahay hana bixiyo, ilaahay hana bixiyo kara, ilaahay hana bixiyo. aad baa magaaladeena u qabtay qahooti oo meel ku yimid iyo meel ujeedi iyo meel kujeedi la aqoonina doonta ku qulqulaya ilaahay lagu noo suuray nasiibkeena waa. haddana waxaan yeelaynaa ilaahay baa weeyaan noo raacay oo raalli nooga yahay annagoo muslim dhibeynin annagoo dad wax koowaad waxaa xagga ammaanka ayadda hadday wadaadku soo jeedinayaa ka mahay wattaquu laa tusiibanna aladiina dalamuu khaasatan يعني وكد دكتونادا أما كبقى مصيبه يسمى أنا خاص كو أهانني في النوم يسمى أنا خاص كو أهانني كد دكتونادا وبدا بدونه ولا يعني في النوم لا يكاسي وقلقلس مركز تاس وأنا قدمت يده ويان هذا أنا إنه فرقة هي قلب الفورة أنا الله يباني وحقيقها عدو منه أنا قلنا لينهي عدو منه أنا قلنا لينهي سوف تبعوية حد النوشين هاي مقالة مقع عسانسا هاي مقع دقاق مهرسا تدكم محوم دوليا ناس أقول دوانسا مركا وحوية أنا متاس حلا يا هاي أنا قادنو سبح لأنا قادنو. si kastaba ahaatee kulankan ayaa kusoo gabagaboobay jawi degan, ayadoona dhammaan qaybaha bulshada ee kasoo qayb galay shirkan ay isku raaceen in laga wada shaqeeyo amniga degmada si bulshada ay horumar u gaarto. Maxamed Qani Xuseen Kuuso, TV-ga caalamiga ee Somali Channel, degmada Doolo Soomaaliya. magaalada Muqdisho odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa baaq nabadeed u diray beelo wada dega oo ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolkaasi Hiiraan. warbixinta waxaa Muqdisho mar kale nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Cali Xuseen Koronto. kadib kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa waxa ay si kulul ugu cambaareeyeen xiisado ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolkaasi. qaar ka mid ah odayaashii iyo waxgaradkii kulanka ka hadlay ayaa waxa ay baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. haddaba waa kuwan qaar ka mid ah waxgaradkii kulanka ka hadlay. dadka meesha degan mujtamaca ee muslimiinta arinta ayada inay hor istaagaan oo masiibada ay guntaan oo beelaha marka dabka hurin haya dabka shidahayo ay hor istaagaan oo runta ay u sheegaan ayaan ku baaqahayaa. waxa kale inta aan u mahad celinaya dawladaha Soomaaliya waa loogiyo iskuma fillo waxa jooga dawlada shisheeyo walaalaheena u soo gurmaday sida ay u doonayaan nabadda iyo sida ay u qalqaalinayaan in meeshaas ay wax ka dhicin. waxa kale oo sheegayna waxaan leenahay
baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanku waxay guteen waajibkooda ha arkeen dadka aan wax u qabanaynin waana u hambalyaynayaa baarlamaanka sida uu howlaha u qabtay iyo inta sharci oo inta yaroo hadda dhisnaayeen ay soo saareen wuu u hambalyaynaya waxaa kaloo halkaas yimid xildhibaano gobolka hiiraan u dhashay oo qaar beesha surre ay yihiin qaarna ay yihiin beesha xawaadle iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha arrintaas ayada hadday galeen waxba way ka qaban waayeen waxaa halkaa isku dayay beelaha degan gobolka hiiraan oo arrintaasi galay ayna waa ka qaban waayeen waxaa galay amisom ciidamada amisom ayagana taliyo waxba waa ka qaban waayey hase yeeshee saaka ugu dambaysay waxaa ka dhacay dagaal barakicin ah oo halkaasi afar saacadood socday alasaydiina bilowday ummadda kale ee reer hiiraan ee arrintaas ka hadashay oo ka dhidhiisay oo inay sax ahayn ka hadashayna waa u mahadcelinaynaa waxaana hadda ka digaynaa gaar ahaan reer hiiraan uga digaynaa in bulshada beeshaas keliya meel walba ayada sadbursiga iyo wax walba ku socota oo ummadda ilaahay inay dhacdo oo dad xaqiisa inay qaadato jecel inay meel uga soo wada jeestaan sidii haddaba u diidan yihiin inay arkaan cabdulqaadir cali xuseen koronto Somali Channel magaalada Muqdisho magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gudoomiyihii hore ee gobolkaasi Hiiraan ayaa maanta gaaray magaalada beledweyne waxaana uu ka degay garoonka diyaaradaha ee Ugaas Khaliif ee magaalada beledweyne warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Cismaan Aadan Carays gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cabdi Fataax Xasan Afrax ayaa maanta ka soo degay garoonka Ugaas Khaliif Airport ee dhanka waqooyi kaga toosan magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan iyadoo halkaas ay si diir ugu soo dhaweeyeen boqolaal taageerayaashiisa iyo odayaal dhaqameedyo dhalinyarada ugu horeynta halkaas waxaa ka hadashay Duriin Daahir Nucisow iyo gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Hiiraan arrimaha amniga Ahmed Ismaan Cabdulle Ahmed Inji dadweyne kale aad u fara badan waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan welcome gudoomiye gobolkan waa taad hore aad ugu shaqayn jirtay Hiiraan maanta baahi weyn waa ku hayaan waa ku garab istaagayaan naf iyo maalna wax laga daba dhigan doono ilaahay idinkiisa malaha ku soo dhawow gobolkaadii ilaa maantana ilaa saaka 4 saac dadweynaha waad arkaysaa gaadiidka boqolka gaari waad arkaysaa guri wax ku harin male wax maaragtaa meel fadhiya male gabdhaha meeshaan jooga dambiilihii jaadka waxaan ku leeyahay afkaa laga soo daboolay Hiiraan kuma necbo gacmo furan ku soo dhawow habeen iyo maalin ilaahay idinkiisana waa ku qaadi doonaa mana ku dhigi doono xasan waay gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cabdi Xasan Afrax على سو gobolka Hiiraan dadka reer Hiiraan way ku sugayeen ilaa ay shaleeto runtii ilaa ay shaleeto farxa taagnaayeen waxa ku sugayay ciidamada hil walaal ciidamadii qaranka dhammaan shacabka reer Hiiraan waxaan ku leenahay anagu maalmaha soo reeyay gobolka Hiiraan ku soo dhawow waxaan filayaa dadka reer Hiiraan inaad la wadaagi doonto waxay qabaan horumarka iyo midnimada reer Hiiraan inaad ka shaqeyn doonto sidii hore loogu bartay waxyaabaha yar gobolka Hiiraan waxaan isleenahay inaad wax badan ka doonto dadka reer Hiiraan waxay ku leeyihiin gacmo furan ku soo dhawow sidaba xalinta iyo khilaaf bixinta gobolka Hiiraan laga bartay inaad sii furfuro doontaan ay ka rajaynaa kalaalkaasi waxaa ka hadlay Cabdi Fataax Xasan Afrax oo ka warbixiyay sidii diirada lagu soo dhaweeyay magaalada beledweyne isagoo sheegay socdaalkiisa ujeedada rasmiga ay ka dambaysaa imaanshaha magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan runtii noqon doonaan wax dalka Soomaaliya uu ku daydo oo gobolada kale ay ku daydaan oo u noqda tusaale la soo qaato oo sida beledweyne ka dhacday leeyahay ma u malayn doono in aan ku laabanayno ama aan ku laaban doono meeshii aan ka soo baxnay taasi ku laabasho ma laha hore ayaan sii soconaynaa dadku way iskhilaafi karaan wax waa la isku qaban karaa laakiin waxay u dambeynaysaa heshiis iyo nabad iyo wanaag iyo shaqo iyo horumar iyo in halkii hore laga sii dhaqaaqo waxa laala wixii Hiiraan ka jiraahi way dhamaanayaan waxa laala wixii khilaaf yar ka jiraahi way dhamaanayaan reer Hiiraan wixii ka maqan way gaarayaan xuquuqda ka maqan way gaarayaan xuquuq badan baa ka maqan way gaarayaan runtii maalmaha kamid ah ay gaarayaan oo dhow hore gobolka Hiiraan ayaa baaq u jeediyay beelaha walaalaha ah ee ku diraday deegaanka ka baxan leh ee dhanka waqooyi ka xiga magaalada beledweyne uguna baaqay inay xabada joojiyaan wixii dadka soo kala dhaxgal oo khilaafaadka bini'aadamku soo dhaxgalayaan ilaa markii bini'aadamka la abuuray hadii iska dhacay soo dhaxgalay waa in laga wada hadlaa oo nabad lagu dhameeyo mar walba waa in nabad la xisado
waxaan doonayaa dadkaasi reer hiiraan ee dhulkaa beerleyda isku haysta ee muslimka ah waxaan kaga mahad celinayaa dadkii horey u galay arrintooda oo dhiig badan oo meesha ku daada lahaa baajiyo haddana in la baajiyo baaq nabadeed ayaan u dirayaa nabad bini aadamka ilaahay waxaa jira dad laga yaabo ay iyagu ka taliyaan fidno gacanta garta daran waa la qabtaa meesha waxaa jooga ciidamo dowladda ay leeyihiin iyo ciidamo amisom oo caalami labadaba waxaan ka codsanayaa inay dadka garta daran ee dhiigga daadinaya gacanta ku qabtaan oo dadka ka qabtaan haddaan dadka laga qaban dadka dilaya ma joogsanayo dhiigga eeriyadaasi ama tuuladaasi kabxan la yidhaahdo khilaafaadka ka soo cusboonaaday ee maanta laftirkeeda wax ka soo cusboonaadeen waxaan dadka ugu baaqayaa inay nabadda qaataan oo ay nabad ku wada noolaadaan imaanshaha guddoomiyihii hore gobolka hiiraan ayaa ku soo beegmaya xilli diyaargarowga doorasho ka dhacda gobolka hiiraan uu ka soconayo magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan magaaladuna ay ku sugan yihiin xildhibaano waxgarad iyo dhalinyaro qurba joog ah ee iyaga doorbiday inay goobjoog ka noqdaan arrimaha ka dhacaya gobolka hiiraan cismaan aadan carays TV-ga caalamiga Somali Channel beledweyne magaalada muqdisho waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyay ku dhawaad 160 qof oo u dhamaaday tababar farsamooyinka kala duwan ee gacanta ah waxaana warbixintan muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Nimco Maxamed Bashiir xafladda shahaado guddoonsiinta ardaydan oo dhameysatay tababar ku saabsan dhismaha guryaha qurxinta dumarka hagaajinta moobilada iyo toliinka noocyada kala duwan ee dharka oo lagu qabtay mid ka mid ah hoteelada muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay agaasinka waxbarashada ee wasaaradda adeega bulshada xukuumadda Soomaaliya mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir qaarkood gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka madaxda hay'adda Afra oo bixisay tababarka ardaydan iyo marti sharaf kale agaasimaha hay'adda Afra Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Aadan oo ugu horeyn ka hadlay munaasabadda ayaa sharaxaad ka bixiyay muddadii uu socday tababarku iyo tirada dadkii dhameystay 160 kaas waxaan ugu talagalnay 80 ka mid inay haween noqoto ama gabdho 80 ka mid inay rag noqoto ama wiilal yani wiilal iyo rag waa isku mid laakiin da'da kala xadidaysa moraba waxaan ugu talagalnay dadka marka in xirfado kala duwan loo abuuro ama shaqooyin kala gedisan loo sameeyo si dadku ay u yaraato isku dul noolaashiyaha كلما قفك أو وحبرته وكلما كدوين قفك أو حبر إلهي والقرآن كسيع كله لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني وحال يقول مثال قفك أن وحباء قون وحكون أحسن حتى قفك سحرالك أي كون أحسن يعني قفك وحباء قون إن وحل برتادتك إنه وحيوتها أمان يعني إنه صن وحباب برنا رسولك وحيوه هذا أمان أو سبحنا قول وحنا آخر أمان وإيه لكن إنك هدي لي قف هبل ومقر وحنا ما آخريه عايد نقطة مركب وحبرشة مهم أي لا هاي وأنا يعني إن لبرت واجبة علم هو مهم سديت كان قف أما سديت كان حوين كشغل الله أبوري شقوين كله أبوروحي كلا هايين حرفة يرير شقوين يرير أو إذا جورجي تشوفته قبان كرته إذا جورجي كده بعلمه يدين إلى عشان يسه شقنا أي قبض حصل صارت halkii intay suuqa aado oo afgooyaan ka doon lahayd ama kawaan bari hilib ka doon lahayd waxa loo abuuray shaqo yar yar gurigeeda ay joogto qabsan karto sida sharqaanka oo kale harqaan turist yani guri kasta mara waa ka jeexanta guri ayna mara ka jeexneen ma jiro marka ay gurigeeda joogto inta harqaankeeda soo lacagteeda ka qaadato waxa kamid ah shaqooyinka loo sameeyay cilaan saarka iyo qurxinta haweenka waxa loo sameeyay small business gurigeeda ay joogto inay dukaan yar furato dukaankeeda manage garaysato mid lamida wiilashan waxa loo abuuray shaqooyin ayagoo 80 ah dhismaha in fuundi la noqdo gabar dhagax ma qaadi karto dhoobo ma qasi karto shamiinta bulkeeti ma qaadi karto marka wiilkii loo asagana loo doorto waxa kale loo sameeyay wiilasha faryaamo ayaa loo doortay inuu farsamo yaqaan noqdo waxa kale loo doortay mobile repairing qof kasta oo naga mid mobile wata qof kasta hadii uu ka halaa mid soo gadanaya waa ma qof walba wuxuu baan meel ku soo repair gareey marka ayagana shaqooyinkaas ayaa loo doortay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga maamulka gobolka Banaadir Warsame Maxamed Xasan Warsame Joodax
gudoomiyayaasha degmooyinka Xamar Jajab iyo Hodan iyo gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Canab Xasan Cilmi oo shahaadooyinka gudoonsiiyay haweenkii iyo raggii dhameystay tababarka ayaa hay'adda Afra uga mahad celiyay kaalinta ay ka qaadanayso horumarinta dadka Soomaaliyeed ee ay shaqo la'aantu hayso mashruucan la furayo goobjoogan ka ahay ilaahay mahadiis waxa ah oo ku faraxsanahay waliba iyadoo la xiraay haddana inaan joogo fiidowgii aan daawanayna oo ahaa يعني وحيابي مالتي عن كود هاللي نوعي إن لو داله هوشان يعني ولا يسكره أو متقنا الإسكامه له برش الإسكامه له نينكي هلابا متقنا نصيب له حدنا شقة أبور وحاول مجالنا وقتين حمر بدنا صور دعي ما أنت واحد جونا هرمنا جونا إن كبدن بقول قفوت إن كبدن أو ما أنت شقة أبور لو سمي magaalada waxa ay ku soo kordhi karaan waa dareemi kartaan hay'adda Afra waxaan leeyahay ha ku daydeen hay'adaha kale saal ogtiin wuxuu soo maray burbur haddii hay'ad kastaaba intaan oo kale tababarto dadka ama badaha ku dhacaya ama aadaya meelaha mudnayn shabaab waxa u geynaya baahi haddii dadku shaqo wada helo oo qof walba dhalinyaro shaqo hesho shaqadiisaas ka fikiray maahane arrin kale ka fikiri mayso waxaan rajaynaynaa hay'addu inay xirfado kala duwan oo badan dadka barto iyo hay'adaha kale oo jaaniskaas hela waxaan rajayn doonaa insha Allah inaan ka wada shaqeyno wanaagga iyo ummadda danaheeda hadday tahay nabadgelyada hadday tahay horumarka hadday tahay wax dadkeena anfacayo oo dhan aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkan shaqo abuur waayo sababtoo ah waa taa iskaa wax u qabso oo dhab ah sababtoo ah dalkeena marxaladii uu soo maray iyo waqtigii iyo meeshuu ku dhacay waad garanaysaa waxaa la dhisayaa dal cusub iyo dad cusub dhibaatadii inagu dhacday ama dagaalkii sokeeye ee waddankeena ka dhacay wuxuu inagu reebay dhaawac midnimadii ummadda Soomaaliyeed dhaqankii ummadda Soomaaliyeed dhan kastaba uu inaga weeraray wixii inagu dhacay ee gacanteena aynu ku keensanay Maxamed Bashiir Soomaali Channel magaalada Muqdisho magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdalna wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland ayaa shir jaraa'id oo halkaasi ku qabtay waxa uu si kulul uga jawaabay oo waliba ku gacan seeray hadallo ka soo yeeray dhinaca mucaaradka oo ay ku dhaliilayeen waxqabadka xukuumadda warbixinta waxaa Boorame ka soo diray wariyahayaga halkaasi nooga soo warrama Cabdifataax Axmed shirkan jaraa'id oo maanta Boorama ku qabtay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland mudane Maxamed Jaamac Abgaal waxa uu kaga dareen celiyay hadallo ka soo yeeray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani kaasoo xukuumadda ku dhaliilay in waxqabadka dhanka wadooyinka ay xukuumaddu wado ay tahay olole ay ugu diyaar garoobayso doorashooyinka waxa bariyaha dambe la socoteen ay waxqabad badan dalkan Soomaaliland ka socdo in xukuumaddu xamaan qaadatay sidii wadooyin loo dhisi lahaa inkastoo aanu xisbi mucaaradaan u arkayno campaign-kii oo sanad ka hadhay oo ay bilaabeen waxaad hore marag madoona in dowladdii madaxweyne Rayaal markuu xilku waayay isagu wuxuu ka bilaabay degmooyin iyo gobollo badan u bixiyay tanmaad wadooyinkii campaign-ka ka bilaabay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland mudane Maxamed Jaamac Abgaal oo hadalladaasi ka soo yeeray xisbiga wadani ka jawaab celinayana waxa hadalladiisa kamid ahaa waxa igu yaabadnayd tashalay أو جامعين رجل مذكر يقدر حبلون يبغى مذكر هاي ودين وحلاش شيء كربا لكن ما كي أفريق توتر يسد حي توتر لا رسول قاعد ولا سبت الروين إن حتى كل يوم يطلع دولة مجرتيه طريق لبرد السيء وكابين وأربع العصا لا وقضى بالمكعدين ما رشى الفلين ما ذا وحبر الشو أو بحل سكوها الليل يفرحب يوالد يعرف بيها وعيب إنه أربع سياسات كغشة كإنه ماذا كلا إلا هاي قالوا كلامات إن دولة كامبين كم تجلو كامبين كم وإيمان دولا لكن ولا ترتب دولا لكن ما تكون تجلو هو مر بالكتجلا وعكشة كيرنا إن إسكاسين عصرية وعكشة كيرنا والدولة اللي سمين أيام قعدت كوهنا ولا لسيو wadada ceer gaabo maanta xeerasha lagu shaqeynayo waxa ansixiyay
gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland oo isla markaana gudoomiye waa wadani haddaanu xeerkaasi jirin oo aanu ansixinin dawladda halkaas ka tagtay xukuumadda halkaas ka tagtay laguma shaqeeyeen laakiin isagiiba ansixiyey isagaa ku dhawaaqay gudoomiyuhu waana hay'addii sharciga xeerka u lahayd gudoomiye ku-xigeenkiisa inuu dafiro oo shaqadaasi ma jirto lama qaban yidhaahdo dee iyaga u taallaa taa iyagaas si alla sidaanu macnayaanu garan maayo laakiin anu waxaan leenahay war horumar baanu wadnaa waddo iyo wax kastoo ka weyna in la qabto ayaanu diyaar u nahay waxay ku qabsoomaysaa mar walba marka ay dadweynaha ka go'do inay horumarkaa wax ka qabsadaan inankeenna gudoomiye ku-xigeenka ka aadee oo xisbigaasi waddani haddii uu qabo inaanay suuragal ahayn amba been ka tahay xukuumadda amba kaambeyn ka tahay waxaan leeyahay walaalkay war kaambeyn ku iman doonaa annaguna xukuumad ahaan waxaanu ogol lahay dhaliil toosin unbaanu ka yeelana waxaanu ogol lahay macaaridnimo warkiyo xeerkan baynu dastuurkaynu eeganaa waana aqbal ogol lahay waxaanu ogol lahay tartan xilligeeda laakiin ogol lahay inta ka horeysa in bulshada laga daayo wixii aan macquul ahayn iyo fadqalallo inta horumar laga shaqeynayana annaga horumar baan haynaaye maalinta kaambeynkeedii hawlahaas noola soo gudboonaadaan halkeedaan oo mari doonaa laakiin iminka waxaan walaalkay ku qancinayaa oo nagu celinayaa warsamadaa wadda laga samaystay hawadii baa la qaybsaday waddooyinkii hawada ayaa la kala hagayaa wadda laba magaalo isku xidha cid walba way samayn kartaa bulshadana way ka go'an tahay inay shaqadaa qabsato horumarkeeda ka shaqaysato wadda samaysato laakiin guud ahaan waxaan leeyahay horumarka dalka cid kastoo wax ka geysan kartaa waa u xasanaad waa u qurux iyo wanaag kale yaynaan yani waxaa ku murmino ku dawa cabdifataax axmed Somali Channel magaalada Boorama dalka Malaysia oo kamid ah wadamada ay Soomaalida badan wax ka bartaan ayaa waxa ka dhacday munaasabad ballaaran oo lagu caleema saarayay gudoomiyaha jaaliyadda iyo ardayda ka soo jeeda gobolada Puntland ee ku dhaqan wadanka Malaysia munaasabada ayaa sidoo kale waxa xilka kala wareegayay gudoomiyihii hore ee jaaliyadda Puntland iyo waliba gudoomiyaha cusub waxaana ay ka dhacday magaalada Kuala Lumpur ee xarunta wadanka Malaysia warbixintan waxa halkaas inooga soo diray alaaba wariyahayaga halkaas inooga soo warama Axmed Abukar Sari xaflad ballaaran oo xilalka ay kala wareegayeen gudoomiyihii hore ardayda Puntland iyo gudoomiyaha cusub ayaa waxa habeenkii xalaha ay ka dhacday caasimadda wadanka Malaysia ee Kuala Lumpur mudane Cali Mahdi Maxamed Cilmi ayaa loo caleema saaray gudoomiyaha ardayda jaaliyadda Puntland ee dalka Malaysia waxaana xafladan ka soo qayb galay safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Malaysia arday aqoon-yahano qaar ka mid ah horjoogayaasha urur ka jira dalka Malaysia iyo guud ahaan jaaliyadda reer Puntland ee ku dhaqan dalka Malaysia waxaana goobta xafladda laga dareemayay jawi degan iyadoo dadweynaha ka soo qayb galay madashan wajooda ay ka muuqatay sida ugu faraxsan yihiin ay ka soo qayb galaan munaasabad noocan oo kala oo lagu caleema saarayo gudoomiye cusub oo yeeshan ardaydii jaaliyadda Puntland ee dalka Malaysia xafladan ayaa waxa lagu soo bandhigay dood cilmiyeed looga hadlayay muhiimadda ay leedahay waxbarashada waxaana doodan ka qayb qaadanayay qaar ka mid ah ardayda reer Puntland ee wax ka barata jaamacadaha wadankan iyadoo munaasabadan ay soo qaban qaabiyeen guddiga cusub ee ururka ardaydii jaaliyadda Puntland ee dalka Malaysia ugu horeen waxaa madashan daafray gudoomiyaha cusub ee ardayda jaaliyadda Puntland ee dalka Malaysia mudane Cali Mahdi Maxamed Cilmi isagoo halkaasi ka soo jeediyay hadallo qiimo badan oo isugu jira waxqabadka ururkiisa cusub iyo dardaaran uu soo jeediyay guud ahaan ardayda jaaliyadda Puntland ee dalka Malaysia marka ugu horeysa waxaan la dardaarmayaa guddigayga waxaan oranayaa dadka loo shaqeynayo waa Soomaaliduna waa iska dhib badan tahay in dulqaad wax lagu kala wado saa la socotaan ba moralka leadershipnimada sida ambiyada ama rasusha iyada dad bay bedelayeen in dad la bedelana aad bay u dhib badan tahay laakiin waa in dulqaad lagu wado nabi maxamed saxaabadiisa markuu hogaaminayay waxa dad badan baa ka mid ahaa oo munaafiqiin iyo wax kale isugu jira guddigayga waxaan leeyahay dad noocaas ayaa ku jiri doona shacabka laakiin si loo dulqaato midda labaad waxaan leeyahay waxaan u soo jeedinayaa shacabweynaha meesha fadhiya waxaan kula dardaarmayaa Soomaali hadeenahay propagandadana iska badan oral society baan nahay waxa wax ku qaadnaa waa hadalka guddigayga waa khaldami karaa wax badan oo saxana waa qaban karaa laakiin haddii aad dareento inuu guddigu khaldan yahay mid waa noola soo xiriiri kartaa hanugu jaaj garayn qof kale information ka maqashay fadlan anaga nala soo xiriir adoo u maraya departmentiyada u qaabilsan shaqadooda
dhanka kale waxaa xafladan ka hadlay gudoomiyihii hore ardaydii jaaliyadda Puntland ee dalka Malaysia mudane Maxamed Aadan Yuusuf Hame isagoo halkaasi ka soo jeediyay waxqabadka muddadii uu xilka hayay iyadoo sidoo kale madasha ay ka hadleen mid ka mid ah shaqaalaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Malaysia iyo qaar ka mid ah dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadan waxaan jeclahay inaan ku hormaro marka hore waxyaabaha noo qabsoomay sanadii 8 bilood ee aan meesha joognay iyo wixii aan noo qabsoomin markii ugu horeysay waxaan awoodda saarnay inaan helo maadaama aan markaas anigu aan ahayn urur ay ka horeeyaan laba urur actually laba madax oo naga horeysay laakiin markaas aan nalagu wareejin wax agaba ama nidaam akademiga oo meesha markaa ka jiray markaan uusan jirin waxaan isku aragnay inaan nahay foundation ururka iyo jaaliyadda isla markaas anaga wixii naga horeeyay waxay ahaayeen urur arday waxaan sameynay inaanu maadaama dadka wax loo qabanaya ay yihiin arday iyo jaaliyadba isla markaasna baahida badan ay tahay jaaliyadda aysan ahayn ardayda inaan horta marka ugu horeysa magacii ururka aanu maaragtay saan u aragnay sax inaanu saxno oo magacii ururka ahaa BSN aanu ka dhigno PSSM Puntland Student Society Malaysia waxaan u sameynay logo waxaan u sameynay profile waxaan u sameynay vision iyo mission iyo objectives waxaas oo dhan horey uma jirin sida uu jeedeen gudoomiyihii hore ardayda Puntland Maxamed Aadan Haamey intuu xilka soo hayay shaqo badan oo uu soo qabtay ayuu tusay meel fiican ayuu wax soo gaarsiiyay waxa laga rabaa gudoomiyaha cusub ee caawa xilka la wareegaya Cali Mahdi inuu meeshii ka sii ambaqaado aad iyo aad ayaan idin salaamayaa aad ayaan u jeclahay sanadkan sanadkiisa kale inaan iskugu gaarno barwaaqo iyo bashbash xil wareejinta caawa halkan aan ku hayno oo guddigii hore ee ururka PSSM uu ku wareejinayo guddiga cusub ee la abuuray Axmed Abuukar Ashari TV-ga caalamiga Somali Channel Malaysia magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaarna xarunta horumarinta haweenka ee gobolka Karkaar ayaa waxay tababar soo xirtay 94 arday oo bartay caafimaadka iyo cunto karinta warbixinta waxaa Qardho ka soo diray wariyahayaga Cabdiraxmaan Maxamed Cali Balaak tababarkan isugu jiray barashada cunto karinta barashada caafimaadka oo muddo bil ah u socday arday gaaraysa 94 arday ayaa waxa loo qabtay xaflad lagu soo bandhigay waxyaabihii ay barteen ardaydani iyagoo ay soo bandhigeen cuntooyinka mamacaanka taas oo lagu talagalay ardayda qaar inay xirfado ka dhigtaan si ay ugu maarayaan nolol maalmeedkooda ugu horeyntii waxaa xafladaasi ka hadashay Ubax Siciid Daahir gudoomiyaha dalada horumarinta haweenka gobolka Karkaar Women Development Organization Network KDOM waxaan galabta halkan xaflad ugu qabanaynaa hadii Ilaahay idmo arday 94 arday ka kooban oo isugu jira 40 arday oo loo tababarayo human health-ga iyo 54 arday oo loo tababarayay barnaamijka cooking-ka cunto karinta skillkaas oo socday ama tababarka training-ka oo socday muddo bil ah waxa ka faa'iideystay ardaydaas 94 arday ah iyadoo imtixaamadii iyo barnaamijkooda ay soo qaateen waxa u soo gabagabay barnaamijkii bisha ahaa oo tababarka ahaa waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeynaya oo kaleeto hay'adda SESFI oo nagala qayb qaadanaysay barnaamijkan fulintiisa oo iyadu fanka ku bixinaysay aad baan ugu hambalyeeynaya Maxamed Muuse oo ka socday hay'adda SESFI iyo gudoomiyaha waxbarashada degmada Qardho al-Ustaad Saciid Maxamed Faahiye ayaa sidoo kale ka hadlay xafladani dadka waxa loogu talagalay dhalinyarada oo yoosa streetka la yiraahdo ama dhalinyarada very sensitive ka colaadaha ama rag aadeen ama dumar ha ahaadeen in shaqo loogu abuuro oo bil tababar la siiyo ka gadaalna wixii fiicnaada oo imtixaanka laga qaado ku gudba wax internship la yiraahdo 3 bilood meelahaas lagu shaqo geliyo waa waxa loogu farxo in garanaysa tababar soo qaatay waxbarasho ku saabsan ee miro dhalkeedii maanta halkan loo fadhiyo waxaan leenahay waa guul wanaagsan aan ku guuleysateen dadkii tababarkan soo qaatay waxbarashada ah ay ka gaareen natiijadii kama dhamaysta ahayd kuna soo bandhigeen waxqabadkoodii oo halkan ka muuqdo waa idinku hambalyeynayna Maka Daahir Cali waxa ay ka mid tahay ardayda wax ka baratay xaruntani waxayna ka hadlaysaa waxyaabihii ay baratay
waxyaabaha baranay halka lagu soo koobi karo waxaan u malinayaa sawir ahaan inaan u soo bandhignay hadii aan ahaan lahayd waxyaabaha kala gedisan xirfadaha cuntooyinka ama cookinka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkan sida qurux badan oo dhameysnay aqoonta aan ka faa'iidnayna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ugu dambeyntii waxaa soo xiray xafladani siyaaya xilka gudoomiyaha degmada Qardho Xirsi Ismaaciil Axmed بعد السلام آد بان فرحد igu tahay inaan galabta xafladan ka soo qayb galo waana filayay runtii sidii aan ruboodadii hore ku haynay in ujeedadii laga lahaa maxaa tirada tababarakan in ay macnaha 100% ay marayso fayskiisa koowaad mashruuca kan oo ku saabsan sida aan xogtiisa ku haynay xalinta khilaafaadka iyo barida xirfadaha dadka khilaafka in la xaliyaa waa macnaha nolosha koowaad khilaafka oo la xaliyaa nolosha koowaad waay xarunta dalada horumarinta haweenka gobolka Karkaar ayaa waxa ay ardayda bartaa xirfado kala duwan waxaana ka faa'iideystay tani markii si rasmi ah loo furay xaruntaasi arday badan oo haatan ka shaqeysta magaalada Qardho Cabdiraxmaan Maxamed Cali Somali Channel magaalada Qardho xarunta gobolka Karkaar dadweynaha ku nool gobolada kala gedisan ee Puntland ayaa ra'yigooda waxa ay ka dhiibteen sidee iyaga la tahay in loo baahan yahay inay u ololeeyaan murashaxiinta u tartamaysa madaxtinimada Puntland xilliga lagu guda jiro doorashada Puntland ee soo socota qaar ka mid ah shacabka ku nool gobolada kala gedisan ee Puntland oo la hadlay TV-ga Somali Channel ayaa waxa ay ku baaqeen in murashaxiinta iyo dawladduba ay ka wada shaqeeyaan adkeynta ammaanka wariyaashayada kala gedisan ee gobolada kala gedisan ee Puntland nooga soo warama ayaa ra'yi ururin sameeyay waxaana ku bilaabinaa warbixinta koowaad oo laga soo diray magaalada Garowe waxaa noo soo dirtay wariyahayaga Samira Cabdiraxmaan Cabdulle marka la eego dadka Puntland ayaa waxa ay tahay hadal hayntooda ugu badan doorashooyinka madaxtinimada ee fooda ku soo haya deegaanada Puntland waxaana qaar ka mid ah shacabka Garowe ay talooyin ku soo jeediyeen in musharaxiinta iyo bulshada Puntland ay ku haboon tahay inay dhowraan xilliyada ay sameynayaan musharaxiinta ololahooda doorashooyinka kuwaas ay kula hadli doonaan dadweynaha meelaha fagaaraha ay isugu soo baxaan si looga fogaado inay horseedaan rabshado iyo waxyaabo kale haddaba waa maxay talooyinka ay dadku u arkaan inay muhiim u tahay in lagu dhaqmo xilligaas بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعلي الجامع سؤال شادي ويديسي آديات وضو مهدسانتا وسؤال لو باهي وقت كان وحنا مهمة مرشحينتو إني فهمان وحا أي دونيان سنة بدقليا أنا يكون هلا وحا لو باهي إني مدو سميان سيدو كلا وحا لو باهي إزمدو وقت كان دورشوينكو دور مهم يكون لها هانشرين إني دور كوضا أي يشان وشير اللي سوي مادو ونبدا Puntland iyo xasiloonida laga wada tashado magacaygu waa Xalima Maxamed Faarax masharaxiinta dalka iyo dibadda daafaaka kala imaanaysa waxaan kula talinayaa inay anshaxa dhowraan maxay hadalka iyo saxaafadda ay dhowraan oo dalka iyo maxay danta iyo dalka iyo dadkaba u daneeyaan waxaan kula talinayaa inay dhowraan nabadda ay dhowraan oo kicin iyo maxay abaabul iyo waxaas aysan ka waran bulshada aysan u keenin oo sidii sharafta ay ku jirto Puntland inay u xaq dhowraan taasan kula talinayaa xawliga wax ka weyn baa jira waxa ka weyn in laga shaqeeyo nabad Puntland waxay leedahay cadawiyad badan ha noqoto ajnabi Soomaali shabaab cid kasta ha noqoto waxa loo baahan yahay in looga gudbo si hufan oo mid kale too aan kula talinayo dadka reer Puntland waxay tahay inay noqon adkeero ama ku cunay ama ku ciiday laakiin ay noqoto iyo inay noqoto musharaxiinta waxaan kula talinayaa inay ilaaliyaan nabadgelyada inay faraha ka bixin inay ilaaliyaan especially nimanka xilka hadeer hayo oo gacanta ku haya inay ay nabadda ilaaliyaan oo nabadda ay sugaan haddii aan intaasi kaga soo gudubno aragtidii shacabka Garowe haddana waxaan si toos ah inay ku duwayaa wariyahayaga Cabdiraxmaan Balaag oo magaalada Qardho inoo ka soo diyaariyay warbixin arrintaasi ku aadan mahadsanid Samiro iyadoo ay soo badanayaan musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Puntland lana filayo inay bilaabato ololaha doorashooyinka ay ku marayaan magaalooyinka ayaa waxa shacabka ku nool magaalada Qardho wax ka weydiinay sida musharaxiinta u sameyn karaan ololaha doorashooyinka maxaa habboon inay sameeyaan musharaxiinta waa kuwan shacabka ku nool magaalada Qardho oo arintaasi ka hadlaya بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو أهم مصطفى سعيد شبع كسوغان مقالة قردو
waxaan rabaa inaan fikirkayga ka jeediya mataqaanaa murashaxiinta u soo hanqaltaagaya jagada ugu sarreysa ee Puntland maanta waxay maraysaa mataqaanaa meeshii siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan meeshii abad ay gaartay ugu xumayd musharaxiinta waxa la gudboon aan u sheegayaa inay sameeyaan dallad ay isugu yimaadaan dalladaasoo mataqaanaa ay keeni karta midnimada waddanka iyo midnimada shacabka iyo mataqaanaa midnimada mataqaanaa gobolada Puntland ku boobayo maantay ra'yigaygu waxa ay tahay waxa weeye Puntland maanta ma murashax bay u baahan tahay mise waxay u baahan tahay badbaado waa su'aal isweydiin mudan weeye waa in mataqaanaa qiimeyn dhab ah dadka inuusan iska indhatirin wacyiga runta oo maanta Puntland ka taagan magacaygu waa Cabdicasiis Maxamuud oo cilmi madaxweynaha Puntland ee haatan talada haya waa musharax madaxweyne isagoo musharax madaxweyne ah wuxuu la sameeyahay musharaxiinta kale sida ay ololaha isagu u sameeyo bay iyaguna u sameyn karaan ma aha inuu kaga faa'iideysto talada uu hayo ee maamulka waxaanu rajaynaynaa in ay si faratel ah oo siman nin walba magaalo kasta loogu soo dhaweeyo oo tartankiisa iyo ololihiisa si xor ah uga samaysto laakiin aan oran kana waa madaxweyne kana waa musharax magacaygu waa Mustafa Xaashi Axmed weeye waxaan ahay muwaadin reer Puntland ah musharaxiinta maanta waxaa la gudboon aniga waxay la tahay Puntland waa 15 sano jirtay sharci bay leedahay qaanuun baa ka yaala in sharciga Puntland u yaala musharaxiintu ay raacaan markay ay candidate yihiin madaxweynaha jira madaxweynahaas kulli baarlamaanku waa tagayaan wasiirada golaha way tagayaan laakiin sharci bay ka tagayaan sharciga hadda marka ay raacaan sida uu dhigayo musharax inuu maro magacaygu waa Mustafa waxaan ka mid ahay dadka ku nool magaalada Qardho haddii aan fikirkayga ka dhiibto ololaha laga rabo musharaxiinta waxa laga rabaa olole aan dhibayn yani ammaanka wax u dhibayn ammaanka dalka isla markaasna inay maaragtay olole meel kasta ay ka sameyn karaan dawladdu laftigeeda ay u ogolaato inay meel kasta olole ka sameeyaan waxa sidoo kale soo jeedin lahaa in dawladda yani shuruucda dalka u yaal dastuurku qorayo in la raaco iyadoo shuruucda la raacayo in nin walba ay ololahiisa sameeyo sidoo kale dawladda hadda haysa madaxweynuhu waa musharaxa yani sida uu musharax isagu u yahay isaga laftigiisu inuu markaa musharax yahay oo musharaxiinta uu la mid yahay isku xuquuq yihiin xaqa musharaxa kale leeyahay inuu madaxweynuhu leeyahay yani madaxweynuhu kama awood badna musharaxiinta kale iminkan waxaan ku wareejinayaa waryaha Somali Channel magaalada Boosaaso Maxamed Deeq Cabdallah mahadsanid Cabdiraxmaan Balaag shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa aragtidooda ku biiriyay fikir ururinta TV-ga Somali Channel ee Jimcaha taasoo ku saabsan sida shacabka deegaanada Puntland ay u arkaan kulana talinayaan musharaxiinta doorashada Puntland inay u soo bandhigi karaan ololahooda doorasho fikir ururintan waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan Boosaaso oo aragtidooda ku biiriyay Cabdishiid Cumar Ismaaciil Sakariye Maxamed Isticmaar Maxamed Maxamuud Cismaan Faysal Mooteeye iyo Cabdalla Axmed Ciise ayaa dhammaantood fikir aragtidooda ku saabsan ku muujiyay sida ugu habboon ee ololahan loo sameyn karo maxamed waa mahadsan tahay runtii anigu waxaan isleeyahay laba shayba waa muhiim oo u baahan qof walba murashax inuu maskaxdiisa ama maankiisa u geliyo kow marka uu ololaha doorashada bilaabayo cidda uu ka gadaya barnaamijku inay ahaadaan shacabka Puntland taana loo baahan yahay inuu habka uu mari lahaa loo baahan yahay in si fiican uga fiirsado مثلا waddanka idaacadaha ka jira waxaan isleeyahay bulshadu waxa weeye idaacadaha si aad u dhageystaan in musharax walba oo barnaamijkiisa ku soo gudbay maadaama aan waqti loo wada heli karin intii hal hol dadka la soo keeno dadka reer Puntland ay dad aad u badan ay yihiin mid labaad oo aan isleeyahay campaign-ka waa ugu muhiimsan tahay waxa weeye arintan xildhibaan musharaxiintu marka ay doorashada timaado ay bilaabaan campaign kicin kara xataa marka qaybtood amniga khalkhal galin kara taana waxaan ka rajaynayaa musharaxiinta reer Puntland ee qurba joogtintooda badan in waddanku waa noo amni insha Allah ay arinta amniga nagala dadaalaan oo arintaas ay il gaar ah u fiiriyaan dawladda Puntland waxaan isleeyahay oo arinta laga maarmaanka ay tahay kulli madaxweynaha waqtigiisa waa dhamaadayba muddo yarna way ka harsan tahay in la magacaabo guddi madax bannaan oo arinta amniga loo xil saaro si murashax walba ugu kalsoonaado arintan amniga waxaan qabaa ama kula talin lahaa musharaxiinta inay lahu berkibeelinayaan si amniga waafaqsan oo dawladnimada waafaqsan inay kaabinkooda u sameeyaan si positive ah oo lahu berkibeelinaya dhibaato badan aan geysanayn waxyaabaha ay qabanayaan ama riyooyinka ay noo sheegayaan dadka u sheegayaan in ay noqdaan kuwa ay ka dhabeeyaan waxaan qabaa shakhsiyan musharaxiinta Puntland oo tartamaya sanadkan
aan kula talinayaa inay sameeyaan kambeynkooda marka hore noqdo kambeyn ku salaysan jawiga jira ama wacyiga xilligan jira kambeyn nabadeed oo nabadda xooga saarayo aan sameynayn dhibaato iyo problem sameynayn baan kula talinayaa waxaanu soo joognay doorashooyin badan waxa la gudboon horta nabadgelyo deganaansho xasilooni iyo wanaag in lagu doonto kursiga baa wanaagsan ninkii laga guulaystaana iskaga tago isagoo aan khalad samayn waxba samayn dadkan waa dad nabad jecel muddo soo jiray wanaagsan in maalin walba la kiciyo ma fiicna midda labaad waxaan leeyahay dawladana waxaan leeyahay ballanqaadiyaa jiray jaaniska dawladdu ha siiso dadka dhalinyarada ah marka ugu horeysa waxaan hormarlayaa baaq ciidamada iyo shacabka horta xagga nabadgelyada in iska kaashadaan tan kale waxa loo baahan yahay isbedel hadduu yimaado isbedel nabadgelyo ku saabsan waxaan baaq u dirayaa musharaxiinta iyo dawladda cusub oo hadda dawladdii hore jirta oo waqtigeedu sii dhammaalayo iyo musharaxiinta waxaan kula talinayaa horta si nabadgelyo ah in doorashadu ku dhacdo qaybaha kala duwan ee shacabka ee fikirkan dhiibtay ayaa waxay sidoo kale musharaxiinta kula taliyeen in sida ugu habboon ay ololahooda u samaystaan iyagoo mar kale ku adkeeyey in musharaxiinta in ammaanka la adkeeyo ay tahay mid muqadasa lagana hortago wax kastoo ammaan darre keenaya waxayna soo dhoweeyeen aragtida ku aadan in musharaxiinta ay samaystaan ilaalo kooban oo aan fara badnayn si ammaanka uusan faraha uga bixin xilligan oo ay puntland wajahayso doorashooyinka madaxtinimada marka waxa ugu badan ay ka baqayaan waxa weeye waa dhinaca dawladda anigu waxaan isleeyahay marka madaxda dawladda hadday dhegaysanayaan waa in fursad loo siiya murashaxiinta inay waqtigooda iyo kambeynkooda si xor ah oo xorriyad ay u sameeyaan murashaxiintana waxaan leeyahay amniga puntland ayaa ka weyn oo daraska iyo ololaha aad wadaan ima muuqato in ciidan ay musharaxiintu ay qaataan ima muuqato waxa ay muuqataa inay ku kalsoonaadaan dalkooda iyo dawladooda kalsooni isgeliyaan qofka hadduu kalsooni qabinna ma tartami karo marka aniga xilligii hadda 2008kii ama 9kii ma joogno xilli ka fiican baan joognaa midda labaad waxa weeye dawladdu rag bay garamayaan moogta marka nin aad garamaysaan gar looma dhiibto nabaddu way fiican tahay dawladduna inay oran annaga sugayna nabadda ilaah baa suga cadow badan baa jira laakiin in meel dhexe la isugu yimaado si fiican loo sheergareeyo arrintaa waxaan u arkaa inaan soo kaxaysan ciidamo oon dhibi jirin meesha doorashada lagu qabanayo waa garowe waa caasimad maamulka baa ka dhisan hadal aan madaxweynaha ku raacsanahay baa jira uu yiri nimanka musharaxiinta waa iman karaan waxa weeye hubka iyo maleeshiyaadna ma soo gali karaanin taa waxa weeye madaxweynuhu xaq buu u leeyahay baaqan iyo aragtidan ay shacabka deegaanada puntland bixinayaan ayaa imanaya xilli dhowaan deegaanada puntland ay ka bilaabanayaan ololayaal ballaaran oo ay musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada puntland samayn doonaan waxaana ololahoodu uu yahay mid ay doonayaan inay ku hantaan xildhibaanada dooran lahaa madaxweynaha puntland 5 sano ee soo socota maxamed cabdalla tv-ga caalamiga Somali Channel Boosaaso haatan aan idinku duwa magaalada Gaalkacyo iyo wariyahayga Maxamed Xuseen Xirsi jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Holland gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Nijmegen ee wadankaasi Holland ayaa waxa ay si qurux badan caruurtooda ugu la ciideen qaybaha kala gedisan ee magaaladaas ay ka kooban tahay Soomaalida ku dhaqan magaalada Nijmegen ee dalkaasi Holland ayaa caruurtooda kula ciiday xarunta caanka ah ee Monkey Town halkaasi oo caruurtu ay ku dabaaldegayeen ciidii isla markaasina waxa muuqatay farxad iyo reereyn ay muujinayaan Soomaalida ku dhaqan dalkaasi Holland gaar ahaan magaaladaasi ee ciida weyn isugu soo baxay xarunta Monkey Town iyo caruurtooda oo markaasi farxad iyo reereynta ciidu ay ka muuqatay arrintan waxa weeye waa gelin tahay Soomaalida kala luntay oo caalamka ka jira ay gelin tahay waxa weeye ma joogaan dadka wadankoodii maanta waxaan aad u faraxsanahay inuu shaqo ciidayo laakiin ma noqon ka waran maanta ciida ma sha Allah maalinka waa maalin ay badan oo maalin islaam waa maalin maanta waxa waa sida wada ognahay munaasabada mataqaana maalinta koowaad ee ciidul adxada sida awgeed waxaan rabnaa inaan farxadda la wadaagno muslimiinta dunida halkasta ay ku nool yihiin carruurta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Nijmegen waxaan ugu talagalnay inaan maanta ka farxino oo waxaan keenay meelaha ay carruurtu ku ciyaaraan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soolna hay'adda SVO ayaa xoolo udxiyaa u qaybisay qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah ee ku nool magaalada Laascaanood si ay uga faa'iideystaan munaasabadii ballaarneyd ee Ciidul Adxa warbixinta waxaa noo soo diray oo Laascaanood ka soo diray wariyahayaga Cabdi Kariim Bulul
xoolahan ayaa waxay ahaayeen kuwo ay ka faa'iidaysanayeen dadka danyarta ah qaarkood ee ku dhaqan xarunta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool iyadoo deeqdan xoolaha ay soo gaarsiisay hay'adda SVO hay'adda Helping Hand oo ugu talagashay xoolahani in ay ka faa'iidaystaan dadka masaakiinta agoonta iyo dadka iyagu ku jira qaybaha cusbitaalka ee TB-da dadka xaafadaha isku rarantay degan magaalada Laascaanood iyagu si weyn u soo dhaweeyay xoolahanina waxay nooga mahadceliyeen hay'adda SVO iyo hay'adda Helping Hand iyadu soo gaarsiisay si ay uga faa'iidaystaan qoysaskan ayaa si weyn waxay ugu farxeen saaka xilligii lagu wareejinayo loodan loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan ayna ugu deeqeen goob kasta oo la geenayay xoolahani ayaa waxaa si weyn halkaasi isugu yimid dadku iyagu xaafadda degan ee loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan kuwaasoo markii dambe si habsamiya loogu qaybiyay iyagoo mid kasta la siinayay intii loogu talagalay iyadoo dadka masaakiinta ee saaka ka faa'iidaystay si weyn ugu mahadnaqeen iyagoo si weyn ugu mahadceliyay hay'adda SVO oo iyadu soo gaarsiisay deeqdan xoolaha ee loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadkan aan waxba haysanin ee danyarta ah xoolahan ayaa waxay ka mid ka yihiin udxiyada loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan xarunta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool waxaa soo dhaweeyay gudiyada xaafadaha ee magaalada Laascaanood iyo dadka danyarta ah oo sheegay inay saaka si weyn ugu mahadnaqayaan hay'adda SVO iyo hay'adda Helping Hand iyadu soo marisay SVO sidii loo gaarsiin lahaa dadkan danyarta ah sidoo kale waxaa halkaasi la gaarsiiyay cusbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood qaybta TB-da waxaana halkaasi kala hadlay TV-ga caalamiga Somali Channel Dr. Cabdi Maxamed Buraale madaxa qaybta TB-da ee cusbitaalka waxaana kamid ah hadalladii sida tan udxiyo ah oo ay noo keentay hay'adda Helping Hand ayna soo gaarsiisay SVO noogu keenay cusbitaalka noo qalay oo loogu talagalay bukaanjiifka cusbitaalka TB-da iyo qaybaha kale oo dhanba inay wax ka cunaan maalinta udxiyada ay u cunaan waa mahadsan yihiin aad iyo aad bay mahadsan yihiin dadkiina soo gaarsiiyay Helping Hand iyo SVO iyo Sheekh Siciid Cadar oo aad iyo aad kaalin uga qaata macaawinooyinka la siinayo hadii jeeraale qaybta TB-da aad baad mahadsantihiin Cabdikariin Nolol Somali Channel magaalada Laascaanood magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Barina ardayda barata kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso ayaa waxa ay deeq isugu jirta daawo iyo dhar ay u qaybiyeen dadka qaba xanuunka dhimirka ku dhaca ee ku jira xarunta xanuunada dhimirka lagu daweeyo ee magaalada Boosaaso warbixinta waxaa Boosaaso ka soo diray wariyahayaga Maxamed Deeq Cabdallah kulan lagu wareejinay deeq isugu jirta dawo iyo dhar ayaa ka dhacay magaalada Boosaaso waxaana deeqdaas oo ka timid isbitaalka jaamacadda Bariga Afrika iyo ardayda dhigata kulliyadda caafimaadka si rasmi ah lagu wareejiyay xarunta dhimirka ee Boosaaso mas'uuliyiinta jaamacadda oo horkacay gudoomiyaha guud ee jaamacadda Professor Cabdisaaq Hiirad iyo mas'uuliyiin kale oo jaamacadda ka socday ayaa kulanka goobjoog ka ahaa waxaana sharaxaad ka bixiyay ujeedka ardayda ay barnaamijkan u sabaabireen Cabdisalaan Axmed Nuur oo kamid ah ardayda kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Bariga Afrika awalka hor markaan ka hadalna dad waalan ahayn laakiin maanta dad waalan way noo kala duwan yihiin marka xarunta oo tagno qof walba uu arki doona dadka waalan noocyada kala yihiin wuxuu fahmi karaa qofkan awalka hor waxa uu waalan yahay dharku dhigay ama dadku dilaya waxyaabahaas oo dhan waxay attention u soo jeediyeen in dadka wax loo qaban karaayo oo dhaqaatiir kala duwan oo ka socday isbitaalka Manhal ee jaamacadda Bariga Afrika iyo jaamacadda udheeda oo kala Dr. Ashar Ali iyo Dr. Faarax Maxamed iyo Dr. Aadan ayaa fikir muhiim ah ku biiriyay qiimaha ay leedahay in la caawiyo dadka dhimirka ka jiran hawshan macni waxa weeye dadka bulshada kamid ah ee dhimirka waxa weeye waa dad leeyahay waa runtii dad macni duruufaha inagu xeeran marka la arko kiimirka qabayba ayaa xaalkiisu ka wagashi marka kii xanuunsan hadalkiisa bada wadada lagu dhaafo $1 one student hadaynu a month iska qaadno magaalada iyadoo dadkeeda iyo sida dadku sheegayeen campaign-ka rasmiga ah lama qaadin oo looma sameyn xaruntan waxaan aaminsanahay haddii campaign-ka rasmiga ah la qaado lacag badan bay heli kartaa meesha aniga maadaama ay deyn kulliyadda caafimaadka waxaan jeclaan lahaa inaan xoojiyo missionka programka ama balaanka $1 one student waxaa marka qayb weyn ka qaatay oo aan wali la meesha garayn oo dawadan hadda bixisay sanadka horena bixiyay manhal hay'adda manhal ayaa sanadka horena xalaale wixii ku baxayay oo dawo ahaa iyo dhakhtar iyo wax walba manhal ayaa bixisay hay'adda manhal baan ugu caawisay jaamacadda ku caawisay dadka dhimirkana ku caawisay hadeerna iyada dawada bixisay laakiin ardaydu wixii kale oo aan ahayn ayay bixiyeen Suldaan Maxamuud Geelxoor oo mas'uulka xaruntaasi ayaa ducdiisa u mahadceliyay deeqda maanta la soo gaarsiiyay sheegayna in xaruntu ay dhismo u baahan tahay waxaan u baahanahay insha Allah meel ciidan ku jira 37 ku jira wax kale ma qaadi karo ilaa qayb baxdo maahan
insha allah sidaan u baarigelin lahayn dhismayaal inaan u helo dhinaca jaamacadan dhulka haysanaa insha allah meeshaan kaliya maahan 50 iyo 100 ma anfacayse 10 sano dambe dadkaas noqon doona halka laga aasaaso caarmo qardho filaan waa Saciid Maxamed Waraabe isku duwa wasaaradda caafimaadka ayaa ducdiisa kulankan ka hadlay ka wasaaradda caafimaad ahaan barnaamijkan dhimirku awal vertical buu ahaa meel kale ayuu ku attach karaysnaa laakiin fillahi alxamdu hadda barnaamijkaas waxaa dib loogu soo celinayaa wasaaradda caafimaadka gacanteeda waxaan rajaynaynaa marka processkiisa uu dhammaado barnaamijkaas si toos wasaaradda ugu soo wareego inay wasaaraddu si toos ah uga hawlgali doonto Professor Cabdirasaaq Hiirad gudoomiyaha guud ee jaamacadda Bariga Afrika ayaa baaq u diray bulshada caalamka inay gacan ka geystaan xarunta lagu xanaaneeyo dadka dhimirka ka jiran ee ku taala Boosaaso mashruuca dhismihiisii baa la rabaa in la bilaabo goordhow dhulkii sida la idin sheegay waa la hayaa hadda dhismihiina ina qayb ka qaadataan daawooyinkan hadda waxa qayb ka qaatay waxa weeye jamciyado iyo shirkadaha daawooyinka wadanka keena qayb ka qaato ku tabarucay idina inaad qaybtiina ka qaadataan arrintaasaan oran lahaa dadka diasparaha ah oo waliba aan aad ugu xoojinayo xarunta dhimirka Boosaaso waxa ku jira tiro dad oo xanuunsan kuwaas oo hadda ay ku socdaan dawooyin iyo in la tacaalo xaaladooda caafimaad waxa xaruntan ay tahay xarun si gaar ah ay isugu xilqaameen odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada Puntland Maxamed Deeq Cabdalla TV-ga caalamiga Somali Channel Boosaaso guud ahaan daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaa warka TV-ga Somali Channel warka xiga inta aan ku kulmi doono waa Jaamac Dabarani oo digaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.